وأريا أن أدرسنا قفان أدو جعلها قف كستان اسكدين أن لحظة أذيك أيامكم هذا mana aqaano sababta iyo waxa ay u dhacdo aad ayaan ku jeclahay waqti walba adiga ayaan ka fakaraa marka aan adiga ka fakarayo dadka oo dhan waa ay ila yaabaan farxadayda aniga waan ka jeclahay waxaan ku jeclahay sida shinidu malabka ay u jeceshahay oo kale iftiinka nolosheeda ayaa tahay farxadayda iyo murugadeeduna waa adiga samray noloshu waa qaali daaduna waa sida uwixii oo kaleete noloshu waa maalmo qura balse jacaylku waa hal mar oo keliya ay xasuuso haddii aan mudanahay in la xasuusto aad ayaan kugu xiisaa mar walba oo aan ku moogaado waqti yar waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago neeftayda daqiiqad walba iyo sikin walba ruuxdayda waa aan kaa jeclahay haddii aad ii dhowdahay ama waad iga fogtahay si saayid ayaan kuu jeclahay ma dareemo farxad markaad adiga ila joogin kuma iloobi doono inta nolosheeda ka harsan oo idil waxaa tahay qof wax ka yaqaana jacaylka ma teetid wax u qalmo xumaanta wanaagaaga waa mid mar waliba aan dareemo mana iloobi doono macantu ma soo koobi karo wanaagaaga laakiin waxaan hubaa inaad tahay qof karti dabeecad iyo dulqaad alla ku munaystay waan ku jeclahay waan ku jeclaan doonaa ii noolaa weligaa ay laafi may nolosheeda